luuq oo barigaasi dad badan u joogo oo aad ay u sidantay dawladnimadeeda iyo muuqaalkeeduba halkiiba annagoo subax joogna iyo soo degay ninka la yidhaahdo aadan gabiyo wasiirkii gaashaandhigga markaa ahaa oo yaa soo degay aadan gabiyo markuu soo degay Sheikh Hussein wuu sheegay wuxuu yiri ninka meesha fadhiya ma taqaana maya waa kuma wii daay al nuur weelka maqashay man ilaah ba ku ogo ninkana daay al nuur buu yiri daay al nuur waa kan odayga culubka ribadiha haa buu yiri waa kan bariige buu yiri aadan gabiyo bulsho military iyo baabuurtiisi goonyaha ay ka yaacayso ya daahir soo booqday ko salaamay daahir baa leeyahay ninka ku salaamaya waa aadan gabiyo wasiirka gaashaandhigga weeye waana aadan gabiyo daahir gacanta markuu qabsaday ee isa salaameen ma una sii deynina gabay markaa indhihiisa uu kaga hadlayo ayaan goobjoog ahayo oo halkaas aadan gabiyo ugu tiriyay wuxuuna yiri dani seeta weeye hadii dabarka la saaray dam haday yiraahdeen indhihi waxday waayay dumarkii ragguba way arkaan darajadaydaasi ninka ii dadaaliya ninkan darajo ii haynin dadka kale oo baan la hadaar wuxuu yahay deeqlow ilaah baan bariyay iyo nabiga dooraay awliyooyinkan diran jiro wadan soo dumay duco iyo inkaar baan ayaa labada deeg saare nin walba midku iga dalbada dirata u raacdo dabaxuma adduuna hore looga dal jiray dib hadaad u sii fiirsana malaha dawliile dugdugtaadu waa maalinta diiran tahay oone ninkan daarta yaalla fadhiya daahir Soomaha dunidaba ninkan kala arkeen daahir Soomaha ninku dumarku daandaansada daahir Soomaha ninkan ubadka daadaawaneyn daahir Soomaha tanqashaba ninkan lagu arkeen daahir Soomaha daa'ima sideedii ninka loo dalaandalini ee dibadda loo sii wadana daahir Soomaha dayax dhacay dib kuguma noqdo wala dadayaay murtidii dabooleydna waa idin dul marayaay damacweynta reer waafatay iyo geesiyada duuban adan khayrka dooxada dagay bayga dalandooli iyo doqolnamood reer abka abdaar wuxuu yahayba ducaqabaha reer qaasin iyo doorka reer cali ah ducaqabaha reer qaasin iyo doorka reer cali ah reer waaxid dood lagu hadlo iyo deeqda lagu sheegay soonqaadka daacada alle iyo diinta lagu tuuray dulunyaraha reer xawis iyo dawd reer abakar sagaalkii dab baan doonayaa darajadoodii darabtaan ka jira reer tolkay kama dilaalayne war ma daranyadaydan la maqalay ma soo dayne dan hadan la ii gelin indhana la iga daaweyn walla way dulaysaa kobtan idinka dayraayay sidii daahir la yiri aqligu ima dabalayne waxaan diidi mooyeen arrino iguma daahnayne anigoo dalaandalaya deeq la furay dayax dhalada yaalaanahay iyo dirir sidiisii gabayga aan dalandoolin jiray uu dabaal maray bad inuu dardaray waa waxa dan ogaateen daaraha madiiniya Makka daabac loo dhigay daarta xamar dukaamada berbera guriga dooloowa taafeed in loo gaaray iyo deeganka baar dheer degmadii Hargeysa intii dib uga soo jeeda dirida Sheikh Hussein daadagaheeda ka soo dadaba doole iyo ciid ama sadaar weyne dacwaadkayga waa laga hayaa daraf ogaadeen dadoo idil wuxuu wada lahaa daahir baa yiri maantana ma daynina afkii uu durdurayaay oo weydan daafici haduu dulun yimaadaay war ma daranyadaydan la maqalay ma soo dayne dan hadan la ii gelin indhana la iga daaweyne walla way dulaysaa kobtan idinka dayraayay duqa aadan gabiyo waxa uu ooyay fasileetu la soo baxay indhihii ilmadii iskaga tirtay aminkiina amar buu bixiyay lacag 30,000 oo dhaarta joogta iyo baabuur la guruusala faraha laga saaray habeenkii dambe balad xawaan ku dheelmay subaxii dambe indhaha loo fiiqay taas sidaas indhihi ugu baxeen